shirkan oo ahaa mid looga hadlayay dardargelinta sugidda amniga guud ahaan ee dalka iyo xoojinta wada shaqeynta ka dhaxaysa hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya AMISOM UN-ka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana shir gudoominayay shirkan wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayadoo ay ka soo qayb galeen taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed saraakiisha ammaanka madax ka socotay AMISOM iyo ku-xigeenka u qaabilsanaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ugu warbixiyay waxyaabihii loogu wada hadlay shirka inta uu socday maanta waxaan qabanay shir looga hadlayay amniga waxaa ka soo qayb galay ninka ugu sareeyay AMISOM sidoo kale ninka ugu sareeyay UN-ka waxaa kaloo ka soo qayb galay commanderka AMISOM sector 1 commander taliyaha booliiska ciidanka Soomaaliyeed ku-xigeenkiisa iyo saraakiilka ka tirsan wasaaradda amniga waxaa laga hadlayay sidii la iska kaashan lahay amniga guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo sidii loo dardargelin lahaa wada shaqeynta iyo iskaashiga ka dhaxeeyo UN-ka dowladda Soomaaliyeed iyo AMISOM marka shirkaas waxyaalo lagu hadlay arrimahaas ku saabsan iyo sidii loo horumarin lahaa sidii loo dardargelin lahaa amniga Abdullahi Ahmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.